هبلها أريدهين هبلا يوكا هو قلا قلانا هبلهنا وإذا كامل والبكم قليا وحلا كسمينا هدا شرف يسيلين هبلهنا أوتوري ليدين أو إذا كرب بحليدين بادريات كريستانية دايا كريستانيس قبا هو إذا خشيل ليدين وحابكم ميدان دقتين ما ميدان تلاهدين هبلا ما ميدان سو هذا القادين هبلهني بعيبيسين أو إذا كيبيس عيبيا مليا فريستي ناحش هذا وحسكوا فلا وحلا ودادنا واوي يدك إسلام كامتلي شيخ عمر يا شيخ درر يا شيخ مصطفى يا شيخ بربراوي شيخ هذا كأو شرفت بدن وحلا يك الله رنتك كع هديك لا تصيدين دبيسة إذن كانوا والله حبسية يا إذن كانوا والله حرحرية شرف يا كرم أكتي ما لين تقيامنا والله كوسا صارية إذن كانوا عادوا أيام درا أنا قم أنت وحنا كهذا ليا أنا دوجه ليا دمر كأنت الصحافة الصوفريستان كوش بشدة لو قصوا شفتوا أرمها عبد المالك أنا وحبا ودريك مشغولة كم مشغوشا العجها لو قصوا شبوا إذا هبلا يجيب كتير إن محي هيدا إن بادريدي هاي ستا أو بادريدي وحدك تالي أنت هالكايس صوران أورانا يا إن عبد المالك ما عين كان يا عبد المالك بس تنجدي نا عبد المالك وحبكم ما هيسوا ناقها لسوء رورية العكت لسيو عبد المالك عيب ملء إذن وحمد دران وأنني إلهي وأنني إسلام ككيب وكي كيب رقبك ورهي نا بحب ما وجديني إذن كان يدين حدنان مايو هدا إسلادين عبد المالك إذن كو يدين حدنان يدين حدنان مايو سو ما يدان قرنين عبد المالك وح لقوها يستعمل شرتو waxaan ku ori dawladdu intay Cabdi Maalik ku mashquulsantay naagahan ay diranayaan ay ku shubashada ku shubayaan dadkii oo mano haraadana baaya wax aan u qaadan karayna maaha waxa weeyaan Cabdi Maalik wuxuu ka dhashay dadkii jeelka madheere jibin jiray soo maydaan garan imikana kuwii baa u diyaara haddaydu sii dayn weydaan Cabdi Maalik barta loogu tagayo way idin garanaysaan naagihiinana waxaan idin sheegayaa waxaan ku ori ragna wuu la dhashay tanna wuu ka dhashay Cabdi Maalik qola isagoon ahayn baa maanta ka dhigteene wuu noqon doonaa qolo wayna idin arki doontaan in yar ka bacdi hablaha areedihiin habla yaga ho galala galaana hablihiina waa idin kaameel walba ka maqlaya waxa laga sameeynaya hada sharaf iyo isleedin hablihiina u turi laydeen oo idin kala bixi laydeen baadariyad kristaaniyada iyo kristaanis qaba waa idin khajil laydeen waxaaba kuma idin dhaqateen ma idin tiraahdeen hablaba ma idin soo hadal qaadeen hablihiini baa ceebayseen oo idin kiba is ceebaya midhiya fadhiistay naaxishada wax isku fala waxaan ku leeyahay allah hadda taqaano xoolo kuma lihidi soo daa ilaahay baa uga dhawaajiyay halaqada ilaahay baa war mana uga dhawaajinay ilaahay baa uga dhawaajiyay meel wal oo musli joogaba waa laga hadlaya maxay naagahan baan leeyahay la hablaana laga caay hablaana halkay joogana taagnaayeen ma adduunyada ma waxa la arkay in lagu xirayo boarding maxay qabtay ogtaa naaxishada anigu hadii inta boarding ku jirto baba sheeganba xitaa dila fulaabana sheegeen naaqajiro wax isku laabaan leeyahay waxaan leeyahay naagahan baadariyadu siinayay baadarigu lacagta ee aan isiyagi baan isoogaynba waxyaabaha qaarkood baan lagu hadlo media bal soo taagin oo aan laga hadlin oo laga sheekay haween taas oo kale waa ceeb wixii ceebana lagu hadlo waxaan oran lahaa anigu wixii ku noqonaysaan ceebta idu ku filan nusqaanta horta marka hore iska daaya naag walbana waanu garanaynaayo halkay ku sugantay halkay joogtay gurigeeda waanu garanaynaa isaaqna weyn gogolkooda fadhida mid aan u abtirinayna magaceeda garanayna loo tagay ma jirto naagaan carruurtaan ay kaga jirina la carruuraan ay kaga jirana waxba idin kaga ma jiraan ee waxa la idisiiyay xaraan iyo cuqubo aan laba liqaysan ku wada bararteen waxa weeyaan marka waa la isu maqan yahay gaal carruur qaadimo foga weeye waa gaal carruur qaadimo foga laajimaha waa muwaadin oo dabruuc ku dhashu taagan yahay horta taa qabso malaayarka waxaad mooday inuu meel kaaga soo gurgurtay waxaan ku sheegayaa inuu taagan yahay labada garabe ay ku taagan tahay burco inuu labadaba ka soo jeedaan ku sheegayaa taas waa jawaab talabaada kale diintu waxa weeyaan wax loo nisba sheegto oo loo hiiliyo oo lagu dhinto diinta ayaa ugu mudan wuu ka hadlay waxba kuma haysid waxaanu ku leenahay anagoo maxay ku digayna kabadabada diinta la isma hortaagay dawlada hore ku burbar raka xoog weyn oo ka qabiil adag oo ka hub badan oo ka badan ayaa ku burburay waxba way tari weydi wax allaale waxay awoodoodii qaban waa celi weydi diinta lama celin karo mana tihidin naagihiina maxay kala soo farsay dad dhibanayaala oo wax lagu sameeyay ma tihidin waxa tihiin dadkii ku fashilmay maxkamadda ee beenalayaasha aha ee maxkamadda wariday marka maxay hayteen baadriyadan maxay tahay joociisa iyo ninka maxay tahay qaniiska ah dadkiina u hadlaya ilaahay baa idaan aqoon ilaahay ka baqan mala ilaahay ba garanaysan inta kale waxaan leeyahay wadaadada intii ka hadashay way ka hadashay waxaan leeyahay wadaadada waaweyn ee dadka islaamka metelaya sheekh Umar يا شيخ درر يا شيخ مصطفى يا شيخ بربراوي شيخ هذا كأو شرفت بدن وحلاك الله رنتك كع هديك لا تصيدين دبيسة إذن كانوا والله حبسية يا إذن كانوا والله حرحرية شرف يا كرام أكتي ما لين تقيامنا والله كوسا صارية إذن كانوا عادوا أيام ترى عبارهن يا رباط صدر يا وحنا نهايستا وروا وحل استجى وعيه سوي
war miyaynu garan laanahay intaynu diinteenna xabsino oo dadka ka hadlaaynu diidno aynaynu in laynagu soo saarayo oo habaara laynagu kicinayo oo dhibaato laynoo geysanayo waxa ayna haystaa waa sufurtiye maanta sugu nimi cabdimaalig ayaan u hiilino annagoo gobolka togdheera cabdimaalig ilgaara loo yeeshay madaxweynaha iyo afar la mid ilgaara u yeeshay madaxweynaha waxaan kuu sheegaynaa cabdimaalig waxbaa lagu waayey diinta ka soo horjeeda adigu diintii ma sharciga waa lagu waayey cabdimaalig soo daa waxba laguma haysto kitaabku wuu fasaxay maxkamaddu way fasaxday waxba lagu waayey laakiin adiga haysta adiguna xoog haystaa kursi waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne waxaan nahay horta dadkii kuu soo codeeya kuu soo halgamay gaar ahaan anigu waxaan ahay madaxweyne gabadha iyadoo kuu codaynaysa subxii codbixinta lagu gurayay gabadha la furay saddexdii dalqadoodba ku weyday codbixintaadii saddexdii dalqadood iyo gurigeedii reerkeedii gabadha ku weyday codayntii ay kuu codaynaysay gabadha ku weyday bana cabdimaaligna waa walaalka iyo hooyaday macaan baa dhashay iyada hooyaday macaan dhashay haddana gabadhii gurigeedii reerkeedii ubadkeediiba codayntaadii ku weyday ayaad haysataa jeelka ku haysataa isma aanaan lahayn maalintii taasaa dhici doonta waxaanu ku leenahay madaxweyne iska soo daa cabdimaalig waxba kuma haysatid ilaahayna diinta u hadla buuye madaxweyne adigoona tixgelin doona kelmadda aan kudhina aad dhuuxi doonto kelmadda aan kudhi afkayga ka soo baxday ee codbixintaadii aan ku waayay awlaadaydii iyo gurigaygii iyo reerkaygii kaninka lagaga soo saaray muuse haddaad u codayso waad iska tegaysaa kelmadda adigoo tixgelin doona cabdimaaligna aan walaashi yahay inaad cabdimaalig soo dayso ayaan rajaynayaa waxaan leeyahay naagaha facebook iyo ka soo hadlaya miidiyaha habliinu hadday sharaf lahaayeen annagu sharaftii kamaanaan qadin cabdimaaligna ka muuseeqan gurigiinni bay la joogaan baadariyadda joy ciise iyo antar kuubar habluhu wuxuu dhigay marka hore aanay faa'iido lahayn nin qabaa muxuu yahay inantaada muxuu baray nin qabaa inantaada muxuu baray naag kaadida aan iska maydhin oo kiniinis iskaga biiso suuliga gashaa inantaada maxay sheegay maxay baraysaa inanteeda waxay soo bartay adigana kuula iman doontaa intaasaan kaga tegayaa waxaan odhanayaa tix yaro gabaya waxaan leeyahay horta gabadha cabdimaalig le diinta islaamka uma haysta waa kiristan heedhe taa hal baan odhanayaa waxaan leeyahay dayacan dumarehey damiirkaagu muu fogayn hadda waa gabadha soo caytamaysa tii cabdimaalig muu ahayn diinta islaamka muu haysan iyada midh baan leeyahay waxaan leeyahay dayacan dumarehey damiirkaagu muu fogayn walee duldulehe labadahan bandanteeda garan nadameher farastaba hordaayay duxdaadu tahay ee ankumada dahaliye midhiyahayna gehe naankumada dahaliye midhiyahayna gehe gabadhaa waxaan leeyahay yaroo siladii adeega sootaan ka qubi doonaa goray ahaataba toddobaadkaa gudihiisa cabdimaaligna waxaan leeyahay cabdohow waan kugu duceeye allohow ku dahaa ducahan duuga habin baan daha kuugu xidhay ee ilaahay daaraha jannada daha kaaga qaad dabayli kuma qaado duufanno kuma helan caleemuhu ka hamadaatan cirshiga jiraha ee caleemuhu ka hamadaatan cirshiga jiraha tabaale ha sheeganoo tirku ka hama jabo allohow cadowga haga ceelkii wardheer ku tuur war allohow cadowga haga caamiya indhala ka allohow carab waa bele cadowga kaa xijaab harkaaga la joogsay hooskaga lagu cawe harkaaga la joogsay ibadada la isku arag oo harkaaga la joogsay daahaga la isku raac hooyada daray ee haysan baad daawaha u shidaha miskiinka dana haystan baad u muctaadaysaa curyaanka caga wahayay baad caawima u tartaha oo agoonka aabahalabaad ayaa dhaba u tahay ee harkaaga la joogsay hooskaga lagu cawe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta anigu waxaan u jawaabayaa dumarkan miidiyaha taagan hablo horta ilmuhu hooyadii iyo waalidku wuxuu damqadaa markuu hooyadii xaqiiqada dhabtaa diinta u haysato ee qof caadiya hoo jira ay tahay hooyadood iimaan ma leh inta naag halkaa taagan ee hablahoodii iibsatay ee lacagta siisatay maraykan bay noo tegayaan waar maraykanka laa ilaaha illa allah muxamed rasuul baa maraykanku waa axay maraykan dabada nin yidhi nin baan guursanaya iyo naag tidhi naag baan qabaa annagu laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah baanu ka taaganay cabdimaalna xaq buu ku addimaya xaq annaguna xaq baanu ku addimayna walaa muuse biixi walaa madaxweyne annagu wax madaxweyne noo yahay ma jirto maalintii uu diinta islaamka khilaafay ayuu madaxweynaha iyaga naga dhaafay cabdimaalig horta ceebtiina dabadda muu soo dhigin cabdimaalig gabadha kiristanka ahun buu sheegay yidhi maxay dhigaysaa ha la ogaado laakiin ceebtiina waxaa soo dhigay caalamka ayaa layninka daawaday layninkuna ogaaday inaad ba'deen oo rogmateen oo somalilan oo dhan baa magacii ka dishay magaca somalilan dhulkaa la gasheen
laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah waa diintiinni baa iibsateena ilaahay ha laga cabsado بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaheena annagoo ah dhalinyarta reer Burco annagoo ah oo aanan maanta oranayn qabiilka waxaan nahay Cabdimaalig waxaan isku nahay Cabdimaalig waxba qabiilkaasaan nahay waxaan maanta u hadlaynaa waa diinta islaamka waa diinta islaamka tamaanta Cabdimaalig lagu xidhay waa diinta islaamka maanta waxa dadka kiciyay waa diinta islaamka aan ilaahay ka baqno waxaa halkan maanta la iskugu keenay aan ka hadlaynaa waa dulmiga lagu haysto Cabdimaalig oo ah mid xaq darra iyadoo Cabdimaalig ay fasaxday maxkamadii haddana in jeelka wali dub loogu sii haysto cid haysataana ma aha yacni cid kale ee waa Muuse cid uu hayaa waa Joy Ciise iyo ciidankeeda oo Joy Ciise maadaama uu lacag ku qaato Muuse oo yacni uu ka helo lacag waxay noqotay inuu Cabdimaalig sii daayo iyo inuu lacag qaato markaas isaga waxay la noqotay Muuse inuu lacag qaato Muuse waxaan ku leeyahay haddaanu yacni aanu aqligu ku shaqaynaynin indhuhuna miyaanay ku shaqaynaynin miyaanad arkaynin waxaan ka socdaa dugsiga abaarsiyo iyo barwaaqo waxaan ka socdaa maaha wax indhaha laga qarso karo waa wax qof kasta arkayo oo damiir leh balse halka waxa ka muuqata kulli diin marihido sababtoo hadda diin leedahay waxaas maanta fuxshada ka socota wadanka kama dul qaadateen Cabdimaaligna maanta muu mudnayn in isaga jeel lagu rido iyadoo jeel lagu riday oo dulmanan yahay ayaa haddana waxa jirta inaad wali indhaha aad ka sii qarsanaysid oo aad wali la garab tahay dadka dulmiga waday sheekadaaduna waxa weeyaan Muuse Cabdimaalig ha xidhnaado annaan lacagta Joy Ciise ka qaato waxaan ku leeyahay Muuse taas maaha mid suurtagelaysa maaha inuu Cabdimaaligna jeelka ku jiro adiguna aad lacagta Joy Ciise ka qaadatid waxaan ku leeyahay adduunku istaba marayaa oo maalinba qof ayaa yacni haya xilka berrina taas waxay ku dhacaysaa caruurtaada iyo yacni ehelkaaga ilaahayna wuxuu yidhi tilka ayaam nudaawiluhaa bayna annaas maalmuhu waxay ku dhex wareegayaan dadka dhexdooda berri taas waxay qabsanaysaa adiga iyo inantaada haddaad maanta waxa aad ka dhiidhiyi weyda carabka sidaa lehna dee Cabdimaalig tuu tegey carabka hablahaaga yacni kama soo saarin dumarkan jeeda Cabdimaalig tuu tegey hablahaaga sawirada kama soo qaadin carabkana yacni kama soo saarin ma odhanin sidaa isdhaha iyaga intay yacni sidan isdhaheen sawirradana soo galay Muuse waxaan ku leeyahay sida ugu dhaqsiyaad badan xorriyadiisa soo socdo waxa la waxaad ku haystaan ma jirto anigu waxaan ku leeyahay annaga madaxweyne nooma tiid waxaad madaxweyne u tahay Joy Ciise iyo ciidankeeda maadaama iyaga aad amarkooda ku shaqeeyay